kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida. Qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Puntland oo ka digay qorshe dowladda federaalka ay wado oo sababa kira isku dhac hubeysan fariina u diray xubnaha labada gole ee baarlamaanka Puntland ku metela federaalka. haddaba waa kuma musharaxa xisbiga nabad iyo nolol madaxweyne farmaajo mise ra'iisul wasaare Khayre xog iyo macluumaad rasmi oo aan idinkaga helnay ayaan idin soo gudbin doonaa. Qorshihii Abiy Axmed ee dhexdhexaadinta farmaajo iyo Muuse Biixi oo fashilmay mustaqbalka maqaamka Muqdisho ma wuxuu ku xiran yahay baarlamaanka. Xog dheeraad ayaad ka heli doontaan warbixintaasi iyo qaybaha dambe oo aad ku maqli doontaan Trump oo ku hanjabay inuu howlgelinayo military rabshadaha soo afjara. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. aynu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Deni oo xalay hadal ka jeedinaya magaalada Garowe ayaa ka waramay marxaladda kala guurka ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021. Saciid Deni ayaa sheegay inaysan ku kalsooneen guddiga hawsha wada oo uu shaaciyay in lagu saleeyay nidaamka beelaha 4.5 wuxuuna tilmaamay in Puntland aysan aqbali doonin dhammaan hanaanka doorashada Soomaaliya haddii aan la tashi lagala samaynin. xubnaha guddiga ee hawsha loo dhiibay waa kuwa lagu keenay awoodda qaybsiga beelaha 4.5 waxaan ka digaynaa in nidaamka qabaliga laga dhigo dastuur. Puntland waxay meel dheer ka taagan tahay ku kalsoonaanta guddi ama hay'ado sharci dejin oo lagu saleeyay beelaha oo ah kuwa la soo xulay oo aan ahayn kuwa la doortay in maslaxadda dalka loo dhiibay ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Deni. sidoo kale waxa uu hoos ka xariiqay xildhibaanada labada aqal iyo golaha wasiirada Soomaaliya ee ka soo jeeda Puntland aysan ku metelin hanaanka doorashada maadaama aysan ku imaanin doorasho shacab balse ay ku yimaadeen xulasho. madaxweyne Saciid Deni oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay waxyaabo badan oo muhiim u ah doorashada isla markaana ay wada maran habaabin sababi karta sida uu hadalka u dhigay in dib loogu laabto halkii laga yimid. marin habaabinta xukuumadda waxa ay dhalin kartaa in lagu kala tago nidaamka dowladda oo aan ogahay halka uu ka yimid sidoo kalena waxay dib u dhigaysaa dalka oo waxa ka dhalan kara khilaaf ay adkaan doonto in dib la isaga yimaado ayuu yiri madaxweyne Deni ayuu mar kale yiri Saciid Deni. ugu dambeyntii waxa uu ku baaqay in la gaaro heshiis siyaasadeed ka hor inta aan la gudagalin howlaha doorashooyinka si looga hortago khilaafaadyo hor leh oo yimaada. iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in la gudbiyay xisbiga ay ku midaysan yihiin madaxda ugu sareysa dalka sida ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa soo baxaya warar sheegaya haddaba waa kuma musharaxa xisbigaasi ee nabad iyo nolol loogu magac daray ma madaxweyne Farmaajo mise ra'iisul wasaare Khayre. haddaba macluumaad oo aan ka helnay ayaan halkan ku eegi doonaa. xisbi siyaasadeed ay leeyihiin xubnaha xukuumadda Soomaaliya ayaa si rasmi ah looga diiwaangeliyay xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kadib markii uu gudbiyay waraaqaha codsiga diiwaangelinta sida ilo wareedi lagu kalsoon yahay inoo sheegeen. xisbigan ayaa la sheegay inuu qaadanayo magaca nabad iyo nolol oo ay caan ku tahay xukuumadda markii uu talada qabtay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana gudoomiye ku meel gaar ah looga dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar si aan xogta ku helnay. xukuumadda ayaa gudbisay shuruudihii looga baahnaa ee diiwaangelinta xisbiga waxaana lagu wadaa in guddiga doorashooyinka uu maalmaha soo socdo guddoonsiin doono shahaadada ku meel gaarka ila lagu kalsoonaan kara ayaa inoo sheegay in guddoomiyenimada Mahdi Guuleed ay ugu wacan tahay iyadoo aysan kala cadeen qorshaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee xisbigan iyo doorashada soo socota. ila wareedyo ku dhow ra'iisul wasaare Khayre ayaa si kastaba sheegay in xisbiga uu wato madaxweynaha xilka guddoomiyenimada uu sii hayn doono Mahdi inta ay ka soo dhawaanayaan doorashooyinka waxaana ay diideen inay macneeyaan hadalkaasi iyo waxa faahfaahin intaasi dheer inay ka bixiyaan. ra'iisul wasaare Khayre ayaa muddo lagu xamanayay inuu doonayo inuu isku soo sharxo madaxweyne inkastoo wararkaasi ay qaboobeen bilihii dhawaa una eg tahay inuusan sidaasi samayn doonin. diiwaangelinta xisbiga cusub ayaa imaanaya iyada oo toddobaadyadii dhawaa xukuumadda lagu eedeynayay in sababta aysan weli xisbi u samaysan ay tahay inay doonayso muddo kororsi inaysan doorasho dalka ka qaban karin. qaybaha hore ee wararkayna ayaa daawanaysaan halka aad nagala socotaan waa shabakada wararka maanta. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Qoorqoor oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in maamulkiisu uu dadaal badan oo ku bixin doono sidii maleeshiyaad tiro badan looga qaadi lahaa hubka. madaxweynaha ayaa sheegay inay doonayaan inay
mideeyaan awoodda maamulka Galmudug isla markaana maleeshiyaad beeleedyada loo bedeli doono ciidamada daraawiishta iyo booliiska maamulka Galmudug. Galmudug maanta waxaan ka xareynaynaa hubka gacmaha gooni-goonida ahi ku jira oo aan awood mideynayno. Awooddaas iyo hubkaasi waxaa ku dhalin doona nabadeynta deegaanada Galmudug iyo ka hortagga dagaal beeleedyada, ayuu yiri madaxweyne Qorqor. Waxa uu tilmaamay in amniga deegaanada Galmudug lagu wareejin doono ciidamo gaar ah oo ka amar qaata maamulka Galmudug isla markaana shacabka laga doonayo inay taageero muujiyaan. Ugu dambeyntii waxa uu xusay inuu sii wadi doono kulamada kala duwan ee uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku aadan sugitaanka amniga, dhismaha dekedda Hobyo iyo sidoo kale horumarinta mashaariicda horumarineed. geesa kalena ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal iyo dadaalo uu ku rabay inuu ku dhexdhexaadiyo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland, kuwaas oo ugu dambeyntiina ku dambeeyay fashil sida uu shaaciyay wargeyska The Reporter. Wargeyska The Reporter ee ka soo baxa caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa qoray in wadahadaladii ay fashilmeen xilli ay ka cagajiidayaan labada dhinac inay si toos ah isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Wargeyska ayaa xusay in maalmihii u dambeeyay madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ay hawada isku marinayeen hadallo kulul, midaas oo uu ku tilmaamay bilowga fashilka qorshaha Abiy ee isku soo dhaweynta labada dhinac. The Reporter ayaa xiisada ka dhex oogan dowladda federaalka iyo Somaliland ku micneeyay kuwa gudmadu ku sii ridaya rajada laga lahaa inay wada hadlaan, taas oo meesha ka saaraysa rabitaanka Itoobiya ee uu hogaaminayo Abiy Axmed. sidoo kale waxa uu wargeyska si cad u sheegay in labada dhinac ay gebi ahaanba diideen inay yeeshaan kulan midkaas oo gogol xaad u noqon lahayd inay dib u furmaan wada hadallada muddada badan hakadka ku jira. Abiy Axmed ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal cusub oo ku wajahaya dib u furista wada hadalladaasi, isagoo gacan ka helaya safiirka Mareykanka ee Soomaaliya kaas oo ka dhan ahaa madax banaanida ay ku doodo Somaliland. bilihii u dambeeyay Soomaaliya iyo Somaliland waxay isdhaafsanayeen hadallo kulkulul. dhexdhexaadintii Abiy Axmed uu sameeyena waa ay fashilantay ayaa lagu yiri warbixinta wargeyska. waxa uu intaasi sii raaciyay labada dhinacba Soomaaliya iyo Somaliland waxay diideen inay si toos ah isku arkaan oo ay kulan yeeshaan. xiisada siyaasadeed ee ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Somaliland ayaa u muuqata mid sii fogeynaysa in madaxda labada dhinac isku yimaadaan miiska wada hadalka. markana daawadayaal waxaynu eegaynaa warbixin ka hadlaysa mustaqbalka maqaamka Muqdisho ma wuxuu ku xiran yahay baarlamaanka. guddiga isku dhafka ee loo xil saaray dhameystirka xeerarka doorashooyinka qaranka ayaa warbixintii ay soo diyaariyeen u gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya. guddiga ayaa sheegay inay diiradda saareen 4 qodob oo kala ah astaynta kuraasta, qoondada haweenka, matalaadda gobolka Banaadir iyo sidii loo dooranayo kuraasta gobolada waqooyi. arrimahan ayaa ah kuwa ay dood badan ka keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. maqaamka magaalada Muqdisho wuxuu ka mid yahay qodobada ugu waaweyn ee saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya. xildhibaan Ibraahim Isaaq Yar oo ah gudoomiyaha guddiga wadajirka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee diyaarinayay xeerka dhameystirka doorashooyinka qaranka ayaa u sheegay warbaahinta waxa ay baarlamaanka u gudbiyeen. wuxuu sheegay in qodobka maqaamka gobolka Banaadir uu ku jiro waxyaabaha ay diyaariyeen ee baarlamaanka la horgeynayo. hadalkiisa ayuu ku soo gaabiyay aqalka sare ayaa jira oo maamuladii oo dhan matalaya. gobolka Banaadirna maamul buu leeyahay, caasimadana waa ay ku taalaa. dadka ka soo jeeda deegaankaasi oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka kooban tahayna dadaal badan baynu wadaynaa, baaqi badan baynu soo jeedinay oo ay leeyihiin xuquuq baan leenahay, waana in golayaashiina lagu matalo. waxaan u baahannahay in baaqeena laga jawaabo. marka taasi bay ku saabsaneed inuu baarlamaanka go'aan ku gaaray cid gaar ahna waxba kama dhihi karto. sidaasi daraadeedna arrintaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha baarlamaanka hortagi doona ee uu xalka gaari doono. tallaabada ay guddigani qaadeen ayaa horseedaysa in baarlamaanka uu fursad u helo dooda la xiriirta qodobada laga soo diyaariyay. dastuurka muxuu qabaa? dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya waxaa ku xusan in 2 gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed. xeerkaasna waxaa la waafajiyay dhammaan 5 maamul goboleed ay ka kooban tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. cutubka 1 qodobkiisa 9 ee dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya waxa uu dhigayaa in Muqdisho ay tahay caasimadda Soomaaliya. qodobkan ayaa lagu yiri maqaamka madaxda Soomaaliya waxaa go'aan looga gaari doonaa dib u eegista dambe ee dastuurka, waxaana sharci gaar ah ka soo saari doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo bishii February ka hadlayay xiritaanka kala fadhiga 6aad ee baarlamaanka ayaa sheegay in golaha shacabka uu xal u heli doono muranka ku saabsan maqaamka magaalada Muqdisho.
ugu dambeyntiina madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay inuu dirayo military kala eri kara xasilooni darada ay shacabku ka wadaan dalka Mareykanka oo dhan mudaharaadyadaasi oo ka dhashay dilkii loo geystay nin madow oo booliiska gacanta ugu jiray. Waxa uu Trump sheegay maamulada magaalooyinka iyo barasabyada gobolada inay ku guuldareysteen xakameynta mudaharaadyada ah inay difaacaan shacabka, sidaa daraadeedna uu ciidamo military oo rabshadahaasi soo afjara inuu howlgelinayo. mudaharaadyada looga soo horjeeda dilka loo geystay George Floyd ayaa maalintii toddobaad ka socda dalka Mareykanka xilliga oo Mr. Trump aqalka cad warbaahinta kula hadlayay booliiska waxay sunta indhaha ka ilmeysiisa ku kala eriyeen boqolaal mudaharaadyo oo mudaharaad halkaasi ka waday. Madaxweynaha oo beerta aqalka cad ku soo dhexmaray ayaa gaaray kaniisadda St. John oo ku dhagan aqalka cad oo ay mudaharaadyasha waxyeelada u geysteen, wuxuuna madaxweynaha cambaareen iyo caro uu dusha kala dhacay dadka mudaharaadyada nabadeed u bedelay rabshado iyo inay hantida shacabka burburiyaan. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararka inuu halkani soo gelino. waana mahadsan.